بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال iyo marwooyin maanta waxaan rabaa shir jaraad inaan qabto shirkaas oo ku saabsan in aan ahay musharaxa 2016 doorashada ka dhici doonta dalka Soomaaliya mudanaal iyo marwooyin hadii la doorto waxaan idin ballan qaadayaa dawlad cadaalad ah inaan dhiso waliba dawladdaasi waa dawlad dhameystiran xildhibaanadeedii wasiiradeedii ra'iisul wasaarihii taliyaashii ciidamada xataa mid la raadinaya maaha diyaar waay haddiina aan idii hor dhaco ra'iisul wasaarayaasha ama wasiirada ama taliyaashii ciidamada qaarkood ra'iisul wasaare waxaan u dooran doonaa mudane JK oo aad wada taqaanaan oo ah nin daacad ah cadaaladda si fiican u dheereeyo gudoomiyaha baarlamaankana waxaan u dooran doonaa Cabdi Muriide dheere ajakis oo aad taqaanaan nin daacad inuu yahay oo ah nin sida dadka loo qanciyo yaqaano ra'iisul wasaare waa JK gudoomiyaha baarlamaanka waa Cabdi Muriide dheere ajakis waxa ku soo haray ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda qof kale ma waa haween waana Nimco Axmed Heebi qofka kale ee aan dooran doono wasiirka arrimaha gudaha waa Jajumo oo aad wada garanaysaan Jajumo waa nin aad iyo aad cadaalad ugu dheeray waa daacad dalka dambi kama gelin waxaan kaloo wasiirka warfaafinta u doortay Dolly oo aad taqaanaan oo ah actor jilaa fanaan dhalay oo wasiirka warfaafinta hadal waa dambeeyay sida hadal loogu qanciyo waa yaqaana dood ma looga tartami karo waxaan kaloo taliyaha ciidamada u doortay Saalax Dheere waa taliyaha ciidamada xooga dalka ahna wasiirka gaashaandhigga magac maskiinka ma aha waxaa kaloo ku soo haray saaxiibkay Yacoob waa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha nin dheer ma Yacoob Axmed Saadaq Yacoob aldaha waa nin cadaaladda iyo ma sha Allah aad u dheereeyo Ciraaq waa nin jira waxaa loo doortaa asagana wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ahna taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaa kale oo aan rabaa inaan u doorto wasiirka arrimaha dhalinyarada iyo isboortiga Cabdifitaax Maxamed Xaaji Cabdifitaax Alfagi wasiirka arrimaha qoyska iyo haweenka Xawaluul qof waa taqaanaa arrimaha qoyska si uu dheereyso waa diyaabaysaa waxaa kaloo ku soo haray wasiirka cadaaladda iyo garsoorka Maxamed Ismaan Amore cadaalad waa dhameeyni ka daacadnimo waxaa kaloo ku soo haray duqa magaalada Muqdisho cid kale maaha waa Fuad Maxamed Xaaji Shiikhe sidaad arkaysaana dowladii hore waxaa lagu qaybin jiray qabiil bon 45 ma la dhahaa maaha tan waa dowlad nidaam iyo cadaalad ku shaqeynayso waxaan lagu qabinaa bon films haddii la doorto waxaan idin ballan qaadi doonaa 4 maamul gobol oo cusub inaan ku dhawaaqi doono 4taasna waxay kala noqon doonaan Hindi state Musalsal state Maraykan state iyo Arabi state waa haddii la doorto dalka iyo dadkana waxaan ku dhiqi doonaa si cadaalad ah dagaal ma xabad no waa film an musalsal an hindi an hees xarbi no dagaal ma dhici doono nabad ayaan ka shaqeyn doonaa iyo cadaalad dadweynahan waxaa ka ballan qaadayaa haddii la doorto inaan waxay rabaan aan u sameeyo marka waxaan leeyahay isoo dhaweeya doorashada 2016 dhici doonta